بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وولالكن زكريا حديق يوم مقطع عصب بإذن الله الكريم. مقطعا وحان أغهر لدونا قبر آجئات أقيم بدن قبر داسي قصة ذا إيو نرش ذا حياة ذا وحانا كبرنا سدح سدر أيا لوصو كوبي أما لو قهد لي قبر داني وقبر آد أقيم بدن وانا قبر آجئات شرف له قبر دان وحاولا لوها 10 المبشرين ننكمده وحانا حاجة ذا أها أما ننكذا أها نن نبي عليه الصلاة والسلام جنة وبشاري وليب جنة كل حركي ننكذا النبي عليه الصلاة والسلام آيات أجعلا النبي عليه الصلاة والسلام آيات أسود ويسنجر أو صاحب لها ولكن النبي عليه الصلاة والسلام آيات قد عنجري النبي عليه الصلاة والسلام آيات أجعلا ولكن هذا بواتما قبضا آيات أقيمها بدن وهاتما قبضا ولكن أويه 10 المبشرين بالجنة ninkeedana uu yahay nabiga calayhi salaatu wasalaam ninka uu jannada ku dhex arkay waliba nabiga calayhi salaatu wasalaam maadka isku dhawaayeen u jeclaa gabadhan aan sheegayo magaceeda waxa la yiraahdaa Haala bint Auf. Haala waxa ninkeeda ahaa ama qabay Bilaal bin Rabah sayidkeena radiyallahu ta'ala anhu wardaa. waxa walaalkeeda ahaa saxaabigii weynaa Abdurrahmaan ibn Auf, saxaabigii saxaabada ugu taajirsanaa, saxaabigii saxaabada aadka nabiga calayhi salaatu wasalaam u garab istaagay dhaqaalay iyo dhan waliba. Haala bint Auf waxay ahayd gabar Qurayshiyad, waxay ahayd reer Bani Zuhra, waxay ahayd saxaabiyad jaliil ah oo ka mid ah muhaajiraadkii. xaqiiqatan Haala waxay ahayd gabar saalixad ah, waxay ahayd gabar taqiyad ah, waxay ahayd gabar caabidad ah. maanta laga yaabaa inaan aqoon u leenahay inta gabdhood oo la dhashay nimanka caanka ah ama nimanka caanka caalamkan ama nimanka taajiriinta ah ama nimanka maalqabeennada ah ama nimanka filimaanta waxyaalaha sameeyaan ama gabdhaha atrishooyinka ama filimaanta sameeyaan ama musalsalaadka sameeyaan. waxaan kaleeto aqoon u leenahay ummahatul mu'miniin sida Aisha, Khadija, Maymuna, Zainab bint Jahsh iyo nabiga calayhi salaatu wasalaam gabadhiisa Faatima az-Zahra. laakiin aqoon uma lihin gabar walaalkeeda uu yahay bilyooniya, xaajigeedii iyo ninkeedina uu ahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam ninka uu yiri jannadan ku dhex arkay waxaan arkay nin horteeda socdo oo iga fog oo dacaskiisa dhac ka yeeraysa. markii aan sa u sii fiirina waxaan arkay ama aan ogaaday inuu yahay Bilaal bin Rabah radiyallahu ta'ala anhu wardaa. walaalkeeda waxa uu ahaa bilyooniya, xaajigeedana waxa uu ahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam saaxiibkiisa oo uu ku oran jiray yaa Bilaal arixna biha ya Bilaal, ay aadaanka noogu raaxay Bilaalo. haddaba walaalahayga gabdhaha muslimaadka ah ma jeceshahay inaad sida Haala bint Auf aad noqotid? ku dadaal noloshaada, ku dadaal inaad raali gelisid xaajigaaga, ku dadaal inaad raali gelisid Allahaaga subxaanahu wa ta'ala, ku dadaal inaad raali gelisid waalidiintaada, ku dadaal inaad raali gelisid xaajigaaga waalidiintiisa, ku dadaal inaad raali gelisid oo wanaajisid ehelkaaga iyo qaraabadaada oo aad xiriirisid. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.